السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا عشرة امتحانها ويندوز 10. maanta casharkan waxaan ku eegaynaa sida loo sameeyo isticmaala computerka ama loo bedelo isticmaalaha ama userka aad isticmaalaysid oo computerkaaga sida sawir loogu sameeyo, sida loo arko wuxuu yahay, sida loogu bedelo online account hadduu local yahay, mid internetka oo emailka ku xiran sida looga dhigo, ama mid aan email ku xirnayn oo local loogu bedelo. si aad taa u sameeysid waxaad tagaysaa start, waxaad tagaysaa settings, waxaad tagaysaa accounts markaad tagtid qaybtan hore waxay ku tusaysaa isticmaalaha markaad isticmaalaysid. sida hadda kan idin muuqata admin aan isticmaalayaa, magaca isticmaalaha waa admin, waa local account oo ma ahan online account, ma aha email address oo Microsoft iska leeyahay ma isticmaalayo. waan administrator oo wuxuu awood u leeyahay wax kasta oo computerka ku saabsan inuu bedelo, ama software ku xiriirada ha ahaato ama settingka oo la bedelay ha ahaato. macnaha computerka wax kasta uu awood uga leeyahay inuu ka bedelo. meeshan hoose waxay ku tusaysaa sida markaas loogu bedelo accountkaas oo localka hadda oo computerkan gudihiisa ku jira inaan ka dhigo mid email ah oo online account ah. markaas emailkayga aan ku geli karo iyo passwordka emailkayga oo markaas markuu online yahay waxyaalaha ku suurtagali kara waxaa ka mid ah inaad backup online samaysid adoo isticmaalaya OneDrive. marka linkigaas hadaa gujisid waxaad awood u yeelanaysaa markaas inaad online ka dhigtid meeshuu yahay. marka dib aan taas ka eegaynaa. meeshaan hoose oranaysa create a picture, waxaad samayn kadhaa sawir ayaad ku lifaaqi kadhaa accountkaas, sida kaas hadda kayga uu sawirkaas u saaran yahay oo kale ayaad sawir u saari kadhaa. haddaa gujisid meeshan oo kamarada ah, markaas kamarada oo telefoonkaaga hadduu phone yahay ama laptopkaaga ama se kamerada computerkaaga ku xiran ayaa sawir ku qaadi kadhaa. markaas si aad ugu lifaaqdid accountkaas, ama waxaad taabanaysaa browse for one oo markaasi sawir computerkaaga ku jira markaas aad ugu lifaaqdid accountkaas oo uga soo saartid. marka hadda sawirkaas oo kale haddaan ka soo saaro mid labaad oo kale waa saasaan usoo saari karaa. marka waxaan tusayaa markaa mid hore ku jiray haddaa mid labaad soo gelisid kii hore geesku u baxaya. markaa mid soo gelisidba kii ka horeeya geeskan u baxaya. markaa rabti inaad isku bedeshid waa uun taabanaysaa. halka ciladoo jidha Windows 10 awood kuma siin inaad markaas sawirka halkan ka tirtidid. marka haddaa rabti inaad sawirkan oo kale sawiradan oo kale tirtidid ama mid inaad gelisid mid inta gelisay kuwa kale haddaa rabti inaad tirtidid waxaad tagaysaa C drive computerkaaga, waxaad tagaysaa users folder, markaad tagto waxaa taabanaysaa ama gujinaysaa isticmaalaha aad isticmaalaysid rabti inaad ka tirtidid. sida kayga hadda admin aan u isticmaalayay waxaad tagaysaa abdata markaad tagto waxaad tagaysaa roaming markaad tagto waxaad tagay Microsoft markaad tagtid waxaad tagaysaa Windows. meeshaan odhanaysa account pictures, halkaas ayay ku jiraan sawiradii aad soo gelisay o dhan. marka haddaa rabti inaad tirtidid saasaa u tirtiri kadhaa. hadda haddaan ka leexdo ku noqdo markaas sawiradii way ka baxeen. saasaa u tirtiri kadhaa haddaa rabtid sawiradii aad soo geliso geeskan u baxay inaad tirtidid meeshaan odhanaysa. marka kaas waa isticmaalahaas aad aragtay informationkiisa iyo sawir sida loogu lifaaqo. haddaa rabtid inaad email account aad ku sadgelisid computerkaaga oo markaad emailkaaga aad markuu email kuu soo dhaco aad computerka ugu aragtid adoo isticmaalaya Windows Mail, waxaad samaynaysaa email and accounts aad tagaysaa. waxaa hadda midaa kana ku jiray maadaama kan uu ku jiray waa tirtirayaa si aan idin tuso si mid cusub loogu daro. kas waan tirtiray. marka waxaad taabanaysaa add account.
marka wuxuu soo saaraya optionska emailka marka emailka nooca rabtid ama Gmail ama Yahoo iCloud ama Microsoft email oo Outlook Live Hotmail MSN Outlook kaasa taabanaysa kii adiga marka emailkaaga marka emailkayga maadaama aan horay ugu jiray adigana waxa laga yaabaa hadduu hore inuu kuu soo baxo hadduusan kuu soo bixin email addresskaas markaa type garaacaysa kabacdi waxaa odhanaysaa continue marka wuxuu ku tusayaa inaad app isticmaali kari telefoonkaaga si ay markaa telefoonkaaga iyo computerkaaga in sync u ahaadaan labadaba email u isticmaalaan oo markuu email kuu soo dhaco telefoonka computerkan uu kuu soo galo telefoonkana kuu soo galo mid walba aad appkiisa aad isticmaashid haddaan download aanan markaa telefoon app rabin marka macnaheeda waxa waye emailkayga hadda waxa weeye waa uu computerku sidgaraysan yahay mar walba email ii soo dhaco wuxuu ku soo dhacayaa computerka emailka markaa ku install garaysan midka ku yimaado defaultiga oo haddaadan email program kale aadan lahayn waxaad isticmaali kadhaa Microsoft Mail oo markaa Windows 10 ku timaada marka haddaan taabto macnaheeda waxa weeye markaas wixii email ii soo dhacay saasuu iigu soo gelinayaa Microsoft Mail kaasna waxa weeye sida loogu daro email ama email computerkaaga loogu sadgaraya adoo isticmaalaya Microsoft Mail taa haddaan ka gudbo aan dib ugu noqdo sida accountkaaga online looga dhigo maadaama uu hadda offline account uu yahay oo account oo computerka local ku ah waxaad taabanaysaa sign in with Microsoft account instead markaad taabatid emailkaaga gelinaysaa ama Skype ID waxaa gelinaysaa furaha emailkaaga markaa furaha emailka gelisid waxaa gelinaysaa computerkaaga markaas accountka ku gashay aad rabtid inaad online ka dhigtid passwordkiisa kayga ma uusan lahayn password markaaga passwordkiisa ayaa gelinaysaa waxaad taabanaysaa next saa markaa samaysid wuxuu kugu khasbayaa inaad pin samaysid oo pin number markaa computerka u samaysid marka pin number aan gelinayaa mar labaadaan pin numberka qorayaa okay aan taabtay marka hadda accountkayga waa online account marka waxa weeye computerka markaan gelayo waxaan ku gelayaa email address iyo passwordka emailkayga ama pinkii aan hadda qoray ayaan ku gelayaa badanaana markaad offline account aad u bedeshid online markaa wuxuu ku siinayaa optionka pinka oo mar walba ku siinayaa mar walba aad passwordka aad bedeshid oo emailkaagana si macnaha automatic ayuu isu bedelayaa oo computerka passwordkiisana isbedelayaa marka online account faa'iidana waa leeyahay khasaarana wuu leeyahay offline accountina labadaba waa kii markaas adiga aad isticmaalkiisa aad rabtid baad samayn kadhaa faa'iidada ugu weyn waxa weeye passwordka kale haddaa ilowdid waa emailkaaga ayaa ka bedeli kadhaa marka computerka hadduuba internetka ku xiran yahay passwordka sidaas isu bedelaya clipkaas intaasaan kusoo joojinayaa clipka dambe waxaan ka hadli doonaa insha allah sida loogu daro account cusub markaas user ama isticmaalo cusub loogu daro oo loogu bedelo standard user ama admin user marka kan intaasaan ku joojinayaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu